waxay ku astaansan tahay ku suntan tahay Soomaalinimada waa qof qiimo leh ilaahayna siiyo iimaan waa kelmadda aan isweydiyo amba qalbiga marmar wuxuu dhahaa ani waa ilmo jeclaa ilaahayna alxamdulillah wuu ii dooray inaan noolaado cunug marka arko aad ayaan u ilmo jeclaa kaaga darana gabarna madiyaan ku ayo ilaahay ma imtixaamo qofaan imtixaanka ka bixi karaynin waxaan kugu ogahay kitaabka sunnada Somali community-geena hal dhib ayaa qabnaa qofkii oo nii sheegaysa story-deeda A to Z ayaa sarifaysiin ayaa boqolaalo wax ka sii sheegaysiin waxaas wax fiican markaas xaaladda aqligiisa ah u duceeya ducada wax badan bay dadka u tartaa aniga camal ku caafimaaday mar walba ay gaaladu i weydiiyaan adiga wixii dhan oo kugu dhacay alxamdulillah ka waran inta lagu yiri cunuga waa lagu deynaa ibidoo kugu jirtay lagu yiri hello sister kan cunuga alxamdulillah markaas ay dhaan walaalo heeban ku dhuuno markaas ay gudadeen abaay adig ma gabadhii haysatay ilma agoonta tahay oh my god markaas aan ku yiri ha macaanta adig ma agoon abala haysataa mise kuwa nooceego kala haysataa tolo bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan caawa soo dhaweynaynaa oo London ku soo dhaweynaynaa walaasheen Faaduma waa qof aad u qiimo badan qof aad iyo aad aan u jecelnahay qof walaala qof saaxiiba qof markii loo martiyo qiimaha ay leedahay la garan karo muddo 3 sano oo isku xigtay ilaa 4 sano ayaan barnaamijyo ku qabanaynay Sweden intaba way nagala soo qayb gashay intaba way nagarab taagneed iyadoo arrimaha bulshada mar walba u taagan Soomaali meel walba joogto qaasatan Scandinavianka aad uga dhex muuqataa waliba wadankeeda ay ka timid Sweden marka si fiican reer London gacmaha hal la sacbiyo Faaduma caawa la soo dhaweey Faaduma Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha noo deysto waa walaal qiimo badan oo walaal jecelnahay waa walaal aad iyo aad annaga ahaan iyo guud ahaan ummadaba magac iyo sharaf iyo qiimo ku dhaxle shakhsiyaad kooban baa hadli doona kadibna barnaamijka qaybtiisa madadaaladan gali doona hadii ay beedmo waxaan noo daafurayaa caawa barnaamijka hadii ay beedmo waxaan leenahay Faaduma barsho wanaagsan soo dhawow London ku soo dhawow walaalahaaga waa ku jeedaan ma sha Allah aad ay ku bismillahir rahmanir rahim ilaahay aan u mahad celinaynaa ilaahay isu keenay alxamdulillah shukr rabbil alamin mahadoo dhan ilaahay bay u sugan tahay haddii aanan naf qabeen ama aanan caafimaad qabeen maana isku imaadeen alxamdulillah ilaahay baa qoray inaan Allah naga cafiyo wixii dambiyoona raacayna aan iskugu imaano halka kan waxaan rabaa wax yar inaan insha Allah dhex galo hadalkaygu waa soo gaagaabinayaa insha Allah inuu igu bato ma rabo awalan waxaan first ball aan siinayaa warkayga ugu horeeyo walaashay sister Faaduma Faarax farxadda iyo neeshaadka qofka aan ilaahay u mahad celin markuu siiyo nimco bini aadankan wax u qaban aanan ku dhahin shukran ilaahayna uma shukri celiyo walaashay waxaan ku iri waan soo baxayaa markaas tiri okay waa iga aamustay waxba waliba haddaan ogahay xaaladdu inay sidaan ahaanayso waqtiga iyo howlaha xagga furfuran waan soo xirxiri lahaa waa in siin lahaa waqti qurux badan 2 week baa ugu yaraatay deedna waxay kaar bay afkayga soo galisay tiri ama ku tasha ama iska daa already waxaan jeclaystay welcome yar annaga ahaan marka intii ka gaadho okay aan ku yiri ma sha Allah waxaan la soo hadlay sistertayda waligay yaa lahay walaashay anoo yaray Soomaaliya iga soo tagtay nastan hadda 30 sano waa ku dhowdahay intay joogto UK dadka qaar ima yaqaanaan dadka qaar marka snapka YouTube-ka ay arkeen bay ku yiraahdeen fahmo gabadha ma kula dhalatay fahmo gabar ku eg deedna waa iska qarsanayeen waxaan leeyahay horta awalan waa kaaga mahad celinayaa microphone inaad qaadatay adigoon microphone shuqul ku lahayn ee aan weligeed kaamirad iyo aanan gelin wadankaana ay joogto dhowr iyo 20 sano
iyadoo yar la keenay ku ilmo dhashay maasha allah familkayga oo dhan waxaa leeyahay waa mahadsantihiin waanan ogahay inaad dad culumaad tihiin waa inaga raaligelinayaa aada iyo aadaan inaga raaligelinayaa kuwa qarsoon oo gadaal ku jiro iyo kuwa caawa calaashaankayga kaamirada ayna imaan jirin u imaaday gabadhan walaashay oo caawa la bartilmaameystay ayaduna ay business lay tahay oo xatii saxaaf yiri ii kooban kenyaatigu maamaadoodii hadday aan iska daayo dhiigu biyo maaha marka intaa waa kaftan waxaa kaloo ila jooga reer Sweden oo sharafi ah oo yiraahdeen inaan ku aragnaa jirto gabar kaloo iyadana waxaa joogto best friend aan nahay adduunka nabada dadkan businesska iyo ganacsiga isku la jirna gabar kamid ah Farxiyo Suudi from Norway ayay ka timid halkana waa ay u soo guurto waxay tiri waliba gobol ay iga timid lagama yaabay tiri snapkan ka arkay tiri laba bari ka horaan snapka galiyo waa sax aniga dhanna maanta igu afar inta la ii tirin karoon joogo qofka bini'aadanka markuu yahay qof Ilaahay subxaanahu qaadirka uu jecel yahay ummaddu jecel ugu dhaxbeera anu inii hor istaagnaado Ilaahay baa sababay tan igu dhacday shalay maan daraad baad maqasheen oo aad qaarkiin yani isdhahdeen qofkan waay ay u socotaa laakiin waxaan waa wax Ilaahay wato waxaan anu wato maahan wax Ilaahay subxaanahu qaadirka uu watan cid ma celin karto taaniyana haddaan isku kiin sharaxo Snapchat number 1 aan ka ah Sweden waliba adduunka xataa Sweden ta ka tagay adduunka gaaradeedna 7 sano ku jira social media qadartu waxay haysatana waa 3 bilood iyo 3 sano iyo 4 bilood Ilaahay baa qoray still waxa u mahad celinayaa markastana aan u mahad celiyaa Ilaahay subxaanahu qaadirka ii gartay inaan noocan noqdo waxa kale oo aad aan ugu mahad celinayaa inaan ka soo jeedo family aan ii barbaleymin family itusin in qalad iga dhacay waayo hatti sabab way u ahaan kartaa marmarka qaar naftaadu inaad weyso faamiladaada ilmihii baad gaala siisay wali leeyma dhihin hatti ilmihii ka waran leeyma dhaho wali still iyagoo familkayga u imaadeen dhibaatooyin oo ah gabadhan social media laga celiyo alxamdulillah waxa soo dhan way qarsanaa way iska aamusayeen because iyagu markaas dadka maysan u jeedin waxay u jeedeen oo kaliya ilmaha ka maqan waayay u socotaa ilmaha ka maqan laakiin muhiimadda ilmaha ma ahan muhiimadda waa aniga noloshiina mida inigala dardaarmaya haddii wax kugu dhaco shaqadaad heen jirta ee maskaxdaadina ku tusayso hore ku soco Ilaahay ayaa iska leh cadaabta iyo jannadaba Ilaahay baana kugu hagaajin kara hanuunka anigu ma aanan ogeyn mana moodeyn inaan noolaanayo laakiin Ilaahay baa qoray wax la iga qaban karana ma jirto ilmahaasna dawladayda iska daanoon dhalan bay gaaladu qorteen inay ilmaha qaataan waa sharci ayaga dadkooda ugu yani nolosha ka dhacsan loogu talagalay laakiin adiga tahay adigu waad ogtaa qofka tahay qof aan dalna lahayn safaarad u dooda lahayn caruurteena kaliyaheena aqligoodiya marka qurbaha aynu joogno dadkaan la joogno taas waa marka inaad fahantaan haddii Ilaahay ka soo celiyo alxamdulillah oo degdeg Ilaahay kaaga soo celiyo haddii aad weysay kugu dheeraatana ha isdhiibin hooyadaaba Allah ka dhigay hadalka oo naxdinta la markay ku leedahay ilmihii aaw la hadal si degan waxa ku tira hooyo wax kama qaban karo meesha aan joogo diintayda ayaa xatii qabto oo cimilada aad joogtaan arka sida ay gaaladu u dhaqmaan ha u dhaqmina laakiin isu dabo isku aqliyeesta waa meel in laga leeyahay ama meel aad u jeedaan dhaqankii inuu dhumaay adigu kii islaamnimada ku yani dhagnaa hadana basarkaadi aqligaada kula soco soo marka hooyada u sheeg qofku ugu dhawo qofku jecel yahay waa hooyadiis marka ilmihiisa laga soo tago soo dheh sidaas hooyo way idibay kelmadda waa kelmadda aan isweydiyo amba qalbiga marmar wuxuu dhahaa ani waa ilmo jeclaa Ilaahayna alxamdulillah wuu ii dooray inaan noolaado cunug marka arko aad ayaan u ilmo jeclaa kaaga darana gabarna madiyaan ku ay hooyaday aan iga sii daran oo noloshii ay ku adkaatay alxamdulillah Ilaahay ha siiyo samir ay ku samirto ilmaha qaar marka arko ilmahaadii u qaab eg marka aragto qalbigaada ma is celin karo haddana subxaanallah Ilaahay isla markii i bedelo waan is celiyaa Ilaaha ii dooray social mediana
maalinta ilmaha igu yimaadaan dadka qaar waa ogahay inaad dhahdeen waxbaa kugu dhacay waa sax maasha Allah waa isku yarayna maasha Allah aan barano aan qofka markuu nimco haysto markuu nolol qurxo haysto maasha Allah aan dhahno way iska fiicanta maanta ilaahay ii qoro kabsaar damba ma qaadanayo rabbiyo ii keen qaarkiin ku fikiraayo waay ayada waay tan waxaan ku dhex jira waay ilaa yaraanteed waa lay kari waay reerka anuunbaa gabar dhan anuunbaa u ah faamil dhan oo waxaan yani aad u weynaan ka dhashtay haddana subxaan allah oo culamaa maqshib iyo maqrib laga yaqaano laakiin waxaan ku sasabaa hadda iskaga barye hadda waxaan camal oo haayo ma jirto biliis diriciyaa weli maskaxdii markii ugu dambeysay ee aan naxsanaa diricaan ku naxsanaa yani wax qabso wax sidaan saastay tahana buraanburka inaan daaya iyo qorshaysneed afrika u guuro xatii aan siraabis ilmo intaana kaa badan waxyaalaha aan sheegana waa dembi ilaahay naga cafiye maalinta yimaadaan insha allah waan jeclahay inaan ka fariisto laakiin hadda lagama yaabo cidla inaan dib ugu sii noqdo ardarig waa igu adagtaa ya soo marka dad badan oo waxaan arkay idhiirigeliyo dad badan oo idhaho soco dad aniga aana filaynin oo marmarka qaar idhahayo Faaduma adima soo noolaat dadka qaar markay dhahan ma noo soo noqote alxamdulillah waa farxa because waa ogaa meesha aan ka soo baxay meesha aan ka soo noqday waxaan kale u sii gudagalaya alfatrist iyo raggan been maahan Sweden waa laga qiimeeyaa alxamdulillah qofkaas aad u jeedaan iska ahay Faaduma buraanburtu liin sheega waa islaanta tan waxba uma qarsoon waa sidan iska socota ilaahay baa wata waa un gabar reerkoodu mar walba u duceeyaan raakibkii quraanka la daba joogaan iyada Allah soo hanuuniyo marka alfatrist ya waxay galaya waxa la yiri Faadumo gabar abaaya Muniis halkan ka xusaayo oo mar walba hotelka ku soo dhaweyso oo boqorada Sweden aan ku faana waxa la yiri Faadumo looma dhawaan karo dib baa ku dhacay yaa loo dhawaanay markaas ay horta alfatrist bi aha sanadkan ma nagu soo aadanid ha dhowr qof Allah wala walwala tartiibaan u mid ma la filaynin waa imaat xatii rag oo dhan waa kana boo marqaati ka wada ooyeen ma Faaduma soo noolaato soo kacday niyadii waxaan isla wali dadkii dhaxgal wax waa igu dhaceen laakiin waxaan wax ka qaban kara ma waxaan u baahanahay still inaan noqdo qofkii shala diraca xiranay marka marmara is weydiitay ilmaha laga qaato maxaa u socota waxaan iri ilmaha hadii la qaato ma oga miya qalbiga holcay iyo meelo noo tilmaamayo xatii qofka wuxuu ku dhacaa ku sheegina waayo inuu isdilo iyo inuu waashto ayaa sabab u yeelan kartaa ku ataagina wuxuu suubin jiray markaas xaaladda aqligiisa ah u duceeyo ducada wax badan bay dadku u tartaa aniga camal ku caafimaaday mar walba ay gaaladu i weydiiyaan adiga wixii dhan oo kugu dhacay alxamdulillah ka waran inta lagu yiri cunuga waa lagu deynaa ibida kugu jirtay lagu yiri hello sister kan cunuga alxamdulillah laakiin ilaahay waa qoray waa noolaanay mis dheerin in kasto dhaawac i gaaray alxamdulillah xisadaan qabo in soo booqan karo familkaygu imaan karo fareenkayga i arki karaan waliba dadku qaar leeyihiin waad nagu yaraysa waqtiga waa inaga raali gelinayaa dan yaro muhiim ah u yimid waana in jeclahay aad iyo aadaan u faraxsanahay ilaahayna ha ka abaal siiyo walaashay ila jeclaatay inaan qoslo farxo ee tira walaasha London diraca ku xirato oo ku riyoonay riyadayda ahayd aroosaan u soo socday qadarta ay ugu dhacday marka thank you my sister walaashay dadka inta badan way yaqaanaan Faaduma Faarax waa fashionista waxayna haysataa fashion weyn anana Snapchat-kayga iyo TikTok-kayga soo dhigi doono qofkan qof easy maaha lifton iyo dadka anaga caan maana la ilaa ciyaalka xafdana qofkan lacag dad lagu daawada daqiiqada u imaado halo kulmi karnaa alale maxay wixii xaalad kale ku jirtay tir يا مركا ولا شيء ما شاء الله هيرك أجوكتي أو جعليت الله كوهر قليو نورش الله كومعيو دمرو قبيلك أنك ديرانو انتينو
dadkaygu ha ii bato oo waa uga mahad celinaa laakiin sidadaan dadkayga ahayna waa u jeedaa markaad tahay qof qabiilista qaran waad wasaqaynaysaa kollay qiimo kuma gaaraysa waad wasaqaynaysaa laguma imaanayo qabkaada qabiil ha ka weynaado qarannimadaa qiimo leh dukaan kastaan galay oo London ku jiro London iyo hadda villan u socdaa aroos u socdaa dalmaagan tagay la ima dhahayti oo way reerkan ay caysay because dadka dhan I'm frank wax ka qurxoon male Soomaalinimada lagu sheego waa friend xaafadaas waalan ee mar walba aan dhaleeceeyna walaalayaalow alla ayaan uga fogaanaynaa qabiilna waa baranaynaa TikTok la iska yareeyo aalada noogu waalan waa laga fariisto social media 7 sano iyo waxaan ku jiro wax la jiro meeshaas intaan fiiriyay waa war meesha tan waaba ku qurmaayay waa ka fakada laga fogaado hodan iyadoo waliba my sister waa kugu riyoon jira inaan arko waa ku faraxsanaa waxaan kale oo nu mahad celinayaa qofkan waa dun reer London reer Sweden dun bay haystaa adikuna dun kala haysataan Faisa Amir waa isoo wacday dadkii waxay ku jirtay isoo wacay sidoo kale groupka walaalaha Sweden fanaaniinta oo London ka dhisan way isoo waceen dad badan baa isoo xiriiriyay oo aad bulshada magac uga dhaxlay fanaaniin ku jiraan waana uga mahad celinayaa waana jeclaa inaan arko way ii suurtagali weysay degdeg arrin ay soo gashay waa noqona walaalkay oo aan besti walaalnahay Axmed Weyne walaale waad mahadsan tahay inaad ii soo istaagtay waa kaaga mahad celinayaa thank you waxaan kale u mahad celinayaa walaalkay oo walaashay fareenkeeda ah Awes Amora thank you brother DJ-yada sidoo kale hadalku lagama gaaro laakiin waxaan in leeyahay endo waa in jecla jazakallah khair imaatankiina familkayga fareenkayga maqaayadan sharafta la gabadha lana haleega gaarsiyo bariiskeeda waa macaan bariisna ma aan jirin war ilma adeerayaal waa idinku soo laabtay gabdhahaygiiyo waan wada qiiroonay dhammaanteennaba hadalka Faadumo gabar walba oo ilmo guri u joogaan way taabanaysaa sababtoo ah waxaad imagine garaynaysaa adoo caawo hoydo kuwaagiiba aadan gacan ku haynin ilaahay naguma keeno laakiin waa inaan hal mid ogaanaa wixii dhacaya kun sano inaga weyn yihiin maalinkan hooyooyinkan aan uurka u galnay bay noo qoreen wixii dhacaya maalin aan idinka yaabiye waxaan galay maqaayad la dhaho brothers oo hees ku taala waa iska ordayo cunta dalbaday laba gabdhood oo walaalaha Soomaaliyeed iga dambeeyay waa iska siijiyay yani gadaasheedii fadhiyay markaa soo dhaafay waa fariistay way ifiiriyaan way sheekaystaan markaan u afahmo waa kora uga baxay markaas ay dhahan walaalo heeban ku dhuuno markaas ay yiraahdeen abaay adig ma gabadhii haysatay ilma agoonta tahay oh my god markaas aan ku yidhi ha macaanta adig ma agoon abala haysataa mise kuwa noocayga kala haysataa tolo marka waxaan uga dan leeyahay waxay tahay ereygaas wuu itaabtay because anu ma choose gareynin ayadna maysan choose gareynin gabar walba waxay jeceshahay inay guri wanaagsan ka soo toosto ilmeedu xabadka ugu jiraan happy life laakiin noloshu waa 9 toma tubnoodo ha marka hal mida u baahanahay oo asda dumarka Soomaaliyeed marka aad aragtid gabadha walaashaaye waxaad imagine garaysaa adoo booskeedii taagan miyay choose garaysay miyay dooratay mayada rabto oo ma rabto qof ku faraxsan qof walba wuxuu jecel yahay markuu ilmihiisa tagno madaxa ka dhunkado shumiyo oday yar oo albaabka ka fura dhaxana waa jirtaa bariyahan dambe marka waxa حبيبتي marka waxa uga daleehay ilaahay wuxuu yiri irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama horta anigu sheekhameeyay ciyaalka xaafada ahay dadku waxay maleen sheekhay in maadir adigu qaldanteen kooda marka waxaan ka wadaa anagu azad dumar markaan isgarab galno oo aan is jecelnahay dhamaantiin waa idin wada jecelahay
inta maqana waa jeclahay gabar walba waxaan jeclahay oo walaashay inay horumar gaadho ayadoo qurux badan inaan arko tii ooyda waa iskala ooyaa tii cala casho waa garab cala aan dhinacii lay jeediya ahay marka waxaan jeclahay inaan ka codsado kolay clipkan dad badan daawan doona dumaro anagu aan isku naxariisano haddaanan anagu isku naxariisan maalin bayay baa mid la jiidanaysa marka waxaa la yidhi gacmo wadajir bay wax ku wada gooyaan waxaa idinkugu soo celinaya maadaama wax social media ka socdo waxaan isku hayno yani qaran kaliya ma burburin community hana u burburnay marka waxaan rajaynayaa inaan isku naxariiso in ereygaas baan ku adkaynaya carabka walaashayna waxaan leeyahay ilaahay wuxuu yiri kii qadarteeda ku samra ilaahayow adaa ii gatay waan ku qanacsanaadaan markii nooshi marka qaar mugta waa qaraaraysa marka qaraxad ilaa adaa jus garay waan ku qanacsanahay marka waxaan ka wadaa waa qorneed way dhacday wixii dhici doonana ilaahay baa og ilaahayna waxaan mar walba ka baryaa adoo ila jooga adoo iga maqan iyo gabar walba hooyo walba caruur inooga maqan tahay inuu ilaahay nooga soo furdaamiyo inuu ilaahay meel walba qof walba meeshuu ka kurbaysan yahay inuu ilaahay kurbada uga qaado baan rajaynayaa waxaan ku farxno inuu ilaahayna asturo zamankan joogno waxa weey ilaahuna astur waxa ku jirnaa zaman ilaahuna astur aan dhahno oo waxa mucay koris baa horta waxa mucaydi waxay dhigi jirtay markay xanaaqdo waxay dhigi jirtay waxay tiri hadaa halo waa afsalax kaga dhag hadaa amso ilaahay adiga ay riidaymayo mucay waxa weey ayeeyo ama abo ayeeyo ama mucay yani hooyada maamada dhashay ama aabaha maamada dhashay marka anu maamadeed baan soo koris marka waxay dhigi jirtay hadaa halo waa afsalax kaga dhag hadaa amso ilaahay adiga ay riidayn intee aada marka waxa ka wada zaman waxa ku jirnaa ilaahu naasir hadaa aamustid iyo hadaa hadishid bay isku mid tahay marka waxaanu leenahay ilaahay ma aragtay hana asturo adduuniya aakhiro war gabdhaayga ma ogid hadeer waa naxsanaada waa daldalmay raali noqdo waan idin jecelahay ما شاء الله هذا my sister thank you المعشى هذا الكم جيرو وما سنتين جزاك الله خير انت سكوي معتي قف أنا إلا بين بأمهات علينا ما شاء الله على ده ناهضني آخر سمان نواج شراي أنا أقول له يجح الشهادة وعالك مسد الدراية قروح بدن يا عدي بقدرت سن يقول مان لف دبرك عن قصة سوتش كي إلى هينا ناك إذا ما تصو ويقروح بدنته حبون هلتي كانسر أياكل عي إلهي سبحانه قادر كان وكعافية نبات بدنا سوقرت أقول له هاي إنكارك وقول عدو حكسر وقول عد شاكذا مركا سومالي وحواي وحاس وحكو ساس قيل هذا أن جوجينا دمر أسكون حريصنا جروب دمر لنا أن صبصنا قبيل لهن قبيل لهن هبون هلتي thank you نايتي ما دوك فرح سنة وقت هذا قيمها بدل لو يسيس باي معان thank you صاحب كي أويس أموري ما قام مسكين لك ما سبع الله وصعبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طوي قاعد كوده أنا ديار سنين مارت أيو مارتي محيد أي كالي ما قصقو anyway هبين وناكسن دمان انت كسو غيب قشي حفلة سودوين تينا ولا شيء نقالق أها فاضمو رونهان تيموا مركي يقوه رئيسي أني قف عن سودويو مركي يقوه رئيسي وحان صوب ولا صاحبتي هذا غالق أها فاضمو وما شاء الله تبارك الله قبر أن وحوايا قبر أن مارتي إنبو بالذهب كسومال وجرت واي فاضمو أيضا أنا متقانا أي شيء وحلينا waxaan leenahay faadumo barsho wanaagsan soo dhawow London ku soo dhawow walaalahaaga waa ku jeedaan ma sha Allah aad ay ku soo dhaweeyeen noloshayda ma arkin gabar sida lagu soo dhaweeyay qof loo soo dhaweeyay ama taqaana aan naftirkeyga wiligay ma ciyaarin mana haysan meel wiligay aan istaagay aan ka ciyaar ma aqaan wax i wada waa garan waayay waxaan dhahay intaas maartay yaani farxad muuji meesha aka muuqato waxa la meel ka maqnaaw ama ka muuqo ma sha Allah faadumo waxaan leenahay welcome London soo aw saxabkaagu marka aad u mahadsantihiin إن شاء الله بإذن الله الكريم أنتي برنامج دمنا مارتي يعني وده مسترينا هبين وناكسن آدم وما سنتين thank you so much مرلبات مرسد حتى هم كلنا فاضمو welcome ويسادو ما حسين هاي ولا العانة قبر عانة أوري ماركتي لندن نصر سبعنا وقص عبنا كيجي لابد نعبه ما شاء الله فاضمو أخو في قوي
ولا شيء سوري واكو دوالا أمالينا أوغو إيسكيا سو دو أبايديس مرنا هبريرتي انتبا waxaa u malaynayaa waqtigan uu yaraysa baahane wax badan ka meeri lahayd saasama marka insha Allah war badan ma aqaano xogo xalwagadooga ku fiicanahay adaa kaftamo laakiin walaasha insha Allah intaan waqti ka fiican isku heli doonaa waxaan leeyahay dadkii ka soo qayb galay yar iyo weyn walaalayaal saaxiib walaalkeen Maxamed soo igu soo dhaweey thank you very much وانا ما تسنتين ويلكم مالي والبصارة اللي ذيك الربا كستانو كصدرة محمد ما تسنتين هذا ما سنت ولا شيء نصر واقف هذا قيمة بدن إن مدايس كنا نيني هاي قبر أنا جنا قايل إنه وقع أو أنت إن إسكت بعد كوس جريسي فهذا ما الله سبعي عديلها رنتي سر أنت إسكوي ماذا وقفي النادر وإسوقنا رير لندن وفاضمة لوجو مهد عليو welcome فاضمة thank you السلام عليكم ورحمة الله هرت وليجا يعني مال متجين لقاها الله لكن عاوة كقصبنا waxaan soo dhaweynayaa walaashay Faadimo oo igu qaaliya waxaan halkaan u soo istaagay inaan u mahad celiyo dhammaan dadka ka soo qayb galay aad ayaa u mahadsantihiin qaali baa nagu tihiin soo dhawaada sidaa noo garab istaagteen aad baa ugu mahadsantihiin Faadimo adigana ku soo dhawow London walaashay oo microphone weligeed istaagin xataa waa ku soo istaagtay marka waxaan u maleynayaa inaad faraxsan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa baayday Faadimo Faarax oo qaban qaabada isku dabaridka aad waqti dheer gelisay aad ay u mahadsantahay assalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء ويكون هتسنتهاي إماتك نوتمي فرصة دقالة نسيسي قبلها ولا له كسر قيب قلا أدي أدوم هسنتهين بدن أنا محمد سعيد أنا سكو جروب نهايو لنا على السياسة ده قبلها ومتله يهولها صدقوينك لكن حفلتها نوعانة أنا ما ظهرنت أبايا محايو كوة marka aad iyo aad ba horta mahadsantahay abaayo meel kastana kullayba hawsheeda waan ognahay aanu wada duceyno maxaa inuu ilaahay ilmaheena cadowgu haysto inuu maxaa noo soo maxaa baanbixiyo abaayana maxaa qalbigeeda ilaahay u qaboojiyo inuu ilaahay waxa weeye dib kasta oo maanta qof kasta Soomaali haysata waan garan karnaa xanuunkeeda waan dareemeynaa marka aad iyo aad ba u mahadsan yihiin gabdhaha yimi walaashan Faadimo Faarax hodan online Amira محمد سعيد ما شاء الله والجو بدني هاي وما أنت ورير لندن وايس حريني لكن أنت كبدنا سمين لهينه ونقص وكذا سفاضوي مركز next time إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما سنتاي حمدي وين أسيو وهاي لسه دويسين ولا شيء هذا أونلاين هذا أول وجود جاي هاي. السلام عليكم دمانتين وايد والسلام يا قبلها شرفت على قروح ذا بدل مروهين وابجرين يا بكاميرا ذا حو كلها وحالسلام ها ما يمي أنت وحالسلام يا دمان قبلها قروح ذا بدل سيدا قرحان أود اللي بيصير ما شاء الله عندها لقدوك سنيو بالسلام يا waxaan leeyahay waa maasantiin ina imaateen marwooyin baan idin dhahayaa because marwadu waa wixii sharaf la moogtiin hadii ilaahay ku idmahayo marka waxaan leeyahay horto hadii ilaahay ku idmahay boqortooyad basuga ka leexday walaashay Faadimo madaxa ii saaran tahay welcome to London hadii ilaahay ku idmahayo marka madaxa ii saaran tahay waan ugu soo kadisay laakiin ayaday saasta intaani ka badan bad macaanto aad mudan tahay walaasheen oo soo qaban qaabisay boqorada magaalada London oo kala xirantahay Faadimo Faarax ma sha Allah wa salaamaya wariyeena reer Australia no weliga waxa way san jirwiilkan inuu noo joogo Australia macaawa ogaaday walaalkii Maxamed nice to see you barasho wanaagsana ما شاء الله دتك شرفت لي سوق من قابية يقبلها سيدا وناكسن وقصو قيب قلي يا كاميرا مانتينا أجين وحاكله ولا شيء معاني مدحا إيه سارنت هاي مركا دي وما سنتي عاوصل لقوها هالكن نجمة سودو نجمة نشاط كان قروح ذا بدل له يولي بهديه دقنك
ayay caawa noo keentay aad iyo aad u mahadsan tahay iyo soo dhaweynta najma halkan soo istaag najminta halkan taagantahay waxaan rabaa reer London Soomaalidu waxay tiraahdaa calool bahan dhaga ma leh laakiin caawa waxaan rabnaa inaan noqono calool dharagto dhaga leh marka gabadha quruxda iyo qiimaha leh iyo reer duniya events aan u sacbino cunada sharafta leh cunada macaan si sharafta leh starterkii fiicnaa iyo waliba in muddo sawir baan ka qaado dad fara badan oo aan garanaynin caawa su'aalo badan Snapchat-ka ku weydiiyay iyo cun iyo waxyaabo fara badan oo xamar ay ugu dambeysay marka aad iyo aad u mahadsantiin u sacbino dunia events walaasheen najmana soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قشين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن وذا السلامة آدي آد أي أمها سنتين دتك كسوق قيب قلي حفلة دان وآدي آد نوخيم وين قف آدي آد أخيم وين له حفلة دوين كلا عمل معها only قف special الله وطلع قلي ولا شيء نفاضمه all the way from Sweden بسم الله ما شاء الله هرت مرلبات مرسدحات حلا صعبي ولا شينا ولا شينا فاضمة غير إله السيء وأكتهين استوري ده إني للشيء وما بحندين لكن مركزته دعاء أوهايا أنا قاصدن دعاء وبحنا هاي هدا إسده سين مانتا وفاضمة لو كان كوبين هاي تاسنيدين بينا وشكتن أنت يوروب كنولنا هاي ودن everything is possible تاسين أوقاتين واي نولش وحواي nothing is being guaranteed أما قفحن أهاو أما قفي عن أهاو حنون وكسو تابنا أنت يوروب كنولنا هاي مركز حلو بهاي إن لسكو وده دعيو أنا قاعدين وعجلين تأيان هاي سنانية بفاضمو إن مني شيء جاي وحاسمينه like وحنا وقي وين مانتا فاضمو نولجوكتو إن always in knowledge share grace one thing Somali community geena maadaama aan community badan u shaqeeyo Somali community geena hal dib aan ayaa qabnaa qofkii oo nii sheegaysa storydeeda A to Z ayaa sarifaysiin ayaa boqolaalo wax ka sii sheegaysiin waxaas wax fiican maaha gabadha u duceeya anagaas inagu dhici kartaa abaayo u duceeya anagaas aan isku wada duceeyno wada jir abaayo aan ugu duceeyno ogaada Europe anaga ma lihin wax kastana possible waaye life ka Europe tough waaye ama aan tashano ama aan tashanin waa anaga waxna sugaayo marka insha Allah taala waxa u rajeena abaayo muraadkeeda ilaahay inuu u sahlo oolaadeeda inta meeshas ku jirtan inay ku saxariirino oo caafimaad ilaahay u siiyo si degdegna ilaahay ilmaheeda ugu soo saaro by Faadimo we love you وياك وأود ما حسنتهين فاضمة كسر دوينا مساك حوج ها ما فاضمة حروينا كل راح يستمر كسر دوينا هذا ما سنتها نجمة فاضمة فارح إله غير السيو مر لما توسع بيننا ولا شيء قيمها له فاضمة واتصالها النول وقف تصالة نوضة تصالة النولة فاضمة كلنا حدو تندب ودقان دونا لكن هذا فاضمة فارح كسر دوينا صفة عنها الله صعب قبل قابض ومفضو ذا برنامج كان قرحون إلى غير السيو يدا ينجمع ينت كقرب قادتي سيجارا فاضمة أصحاب النهاي وضد كنا دي رجلية عادي هذا مع سنتاي صعب كمر لوات السلام عليكم واد ما هالسنتين عادي أنا وكلي ما قابن وحين سلا قابن ألفا تراست waxaan isla qaabinay make some noise runtii on behalf of make some noise iyo Alpha Trust waxaan leeyahay waa mahadsantiin aad runtii Faadimo waa gabar walaashan ah anigoo ku hadlayo afka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay Faadimo waxay gabar ku dayasho mudan runtii waxa soo gaaray wax weyn ilaahay na aanu barino ilaahayna ha uga soo qaado caruurteeda aniga sanad iyo hal bil baan ku jiray isbitaal habeenkii maan seexan jirin ilmahayga oo aabbahood la joogo baan ka warwari jiray
waxaan isweydiin jiray talow caawo bustaha ma loo hubiyey talow miyay cadaysteen intaysan seexan runtii markaan Faadmo sheekadeeda arkay aad baan ula qiirooday hooyo kastana way dareemi kartaa ilaahaygi weyna waaxidka ahaa ilmaheeda gaaladaha uga soo celiyo iyagoo diintooda weli ku dhegan culturekooda weli ku dhegan ilaahaygi weyna waaxidka ahaa unbaa ka soo saari karaa ilaahay ha uga soo saaro annagana waxay najmo sheegtay waa wax jiro waa wax run ah qof walba uu ku dhici karaa aan ducaysano Faadmo walaalay adna waxaan ku leeyahay walaashay macaan ilaahay ma imtixaamo qofaan imtixaanka ka bixi karaynin waxaan kugu ogahay kitaabka sunnada tasbiixda wardiga annagana waan kuu ducaynaa meel walbaa joogto waan ku jecelnahay aad iyo aad awees amoorna waxaan leeyahay aweesow madaxa meel ka sarayso la salaaxo ma lahan madaxa ay saaran tahay fanaaniinta Alpha Trust walaalahay hodan online maantaan bartay laakiinse waan ku taageeraa Faisa Amir sidoo kale abs on the camera wiilkayga wiilkaas aniga dhalay by the way oo ku jeclahay Axmed Weyne walaalkay oo markasta wallahi markasta i garab taagan thank you so much and Mohammed Alpha Trust kulmiya all of you guys thank you so much gabdha waa mahadsantihiin sidaad caawa u timaadeen idinkoo qurux badan thank you so much waxaan ka codsanayaa inaad ogaatiin Faaduma waxaan isgaranaynaa muddo 4-5 sano iminka ah waxaan isku baranay wadankeeda Sweden oo sanad walba aan tagno barnaamijyo ku qabanno waxay inooga imaan jirtay iyadoo barnaamijyo leh xaflado leh aroosyo leh wax walba ay leedahay markaan nooga soo tagi jirtay waxay ku astaansan tahay ku suntan tahay Soomaalinimada waa qof qiimo leh ilaahayna siiye iimaan storyga Faaduma waa very unique waana very story maaragtay aad iyo aad u qiimo badan wacyigelin oo ah bulshada qaybaheeda kala duwan qaasatan qurba joogta laakiin ilaahay wuxuu siiyay Faaduma dhaqan iyo diin garab istaaga hakiya gurmad iyo gaashaan oo noqda marka waa qof halbeeg miisaan culus ku dhaxla bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibad meesha joogaan waxaan ku faraxsanahay inaan garanayno asxaabnahay walaalanahay caawana ay nala joogto magaalada London inkastoo waqtigu yaraa waxaan jecelahay anoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada inaad si fiican ila soo dhaweysaan si fiican ugu sacbisaan intay sahadlina loogu celiyo heestii ay dooratay inay ku soo gasho caawa ee Soomaalinimada taas ayaa cadeynaysa miisaanka iyo qiimaha ay agteeda ka leedahay Soomaalinimadu heestaa noo diyaariya fadlan wiilasha DJ-ga heestiina macaan hilaac Soomaalinimo heestaa markii la qaado oo inoo dhamaato Faaduma khudbadeeda noogu xigi doonta kadib madadaaladii kadib keegii loogu talagalay walaalaha qiimaha halkan waxaan rabaa caawa markii inaan xasuusiyo Faaduma ilaahay wuxuu siiyay dad ay ku faanto dadkaasna waa dad Soomaaliyeed oo idinkoo kala Sweden marka ugu tagtiin ayaa ogaan kartiin qiimaha ay leedahay markay timaado in loo martiyo waxaan kamid ah dadkii u martiyay ay soo dhaweysay arkay qiimaha ay leedahay Faaduma waxaan ku faraxsanahay inaan caawa goobjoog u ahay safarkeeda London mid aysan ogoleen inaan sheego ayaa jirta laakiin caawa fursadan kaga faa'iideysana waa qof xishood badan Faaduma waxay xataa dhaqaale ku bixisay kaliya ma inay noo timid oo ay nagaga soo tagto shaqooyinkii ama ay nagaga soo tagto barnaamijyadeeda inay waxna weydiisay iska dhaafay barnaamijyada markaa leenna iyada lacagna siisa oo ururada samafalka iyo arrimaha sadaqada waa waxay ku badbaaday lacagta marka dhiibto ma aha inay shakhsiyan aniga ama qof kala siiso laakiin waa arrin la xiriirta arrin samafal marka waa dareemi kartaa qof barnaamijkii iyadu lahayd ama lacag ay ku qaadaleed kaaga soo tagtay si ay dadkeeda iyo dalkeeda u caawiso marka ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr ha siiyo
habka dhaqan na iyo hidaheena iyo horweynkeene dhashay dalka macaanayo sooley hedha sooley sooley hedha sooley hal abuur gabyama walaga habaaray
ما شاء الله تبارك الله هذا نوع حصول وينا ولا شيء فاضل محلنا هاي welcome